qisadan waxa ay ka hadlaysaa tarbiyada iyo sidoo kale waalidka iyo caruurta sida ay iskugu xiran yihiin. qisadan waxa ay ku dhacday gabadhaas uma nooleen aabaheed ee waxa noolaay hooyadeed, waxa ayna ka dhigatay hooyadii saaxiibtii ugu dhoweed ee nolosheeda. wax walba oo gabadhaas la soo gudboonaadana waxa ay u soo gudbinaysay hooyadeed. ciwaanka qisadan waxa uu yahay Nasiib. waxay ahayd gabar yar, mar walba saaxiibadeed ayaa u imaan jireen oo ku oran jireen, maxaad u diidantaa aroosyada? maad aadid, waad yar tahay, maad iska raaxaysatid oo baashaashid oo waqtigaada qaadatid. Nasiib waxay ahayd gabar iimaan leh. waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas oo ah saaxiibka wuxuu noqon karaa mid kaa saaro wadada saxda iyo mid kugu toosiyo wadada saxda. sidoo kale waalidkaada oo saaxiib la noqotana waxa ay ku horseedi kartaa in nolosha meel sare aad ka gaartid. qisadan waxaad ka daawanaysiin aaladaha baraha bulshada ku leenahay sida Facebook, TikTok, YouTube ay noogu wada qoran yihiin Socdaal 24. qisada waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. gabadhan Nasiib la oranayo oo aan idiin soo gudbi doono qisadeeda. aabaheed ayada oo yar ayuu geeriyooday. ayada iyo hooyadeed iyo gabar walaasheed ayaa waxay ku noolaayeen hal guri. waxa ay weysay booskii aabanimada. sidoo kale waxa ay weysay qof nolosha iyo waxbarashada iyo hiigsiga ee leedahay meel sare ka gaarsiiyo. Nasiib hooyadeed ayay waxa ay ka dhigatay saaxiib. sidoo kale guriga waxaa ku noolaay walaasheed, hal cunug ayayna haysatay. gurigaas ayay ku wada noolaayeen. Nasiib saaxiibadeed mar walba hadduu u imaadaan ayay oran jireen, aroosyada maad aadid, waad yar tahay, maad iska baashaashid oo waqtigaada qaadatid. Nasiib hooyadeed waxa ay ugu sir warami jirtay wax walba oo nolosha ku saabsan. hooyada iyo Nasiib waxay ahaayeen laba qof oo saaxiibo ah. sidoo kale gabadhu mar walba hooyo waxa ay la wadaagi jirtay wax walba oo markaas ku soo gudboonaado. Nasiib hooyadeed waxay ahayd hooyo aad u fiican, sidoo kale iimaan ayay lahayd. mar walba Allah subxaanahu wa ta'aala ayay ku xirneed, waxaana joogto ahayd digriga iyo wardiga oo mar walba ay ku soo celceli jirtay. hadalkeedu hooyo aad ayuu u gaabnaay, sidoo kale in ay dadka xamatana aad ayuu u necbeed. mar walbana waxa ay gabadheeda kula tali jirtay sidii ayada oo kale ay u noqon lahayd. mar walba waxay u sawiri jirtay dadka dunidan ku nool sida ay yihiin iyo sida ay u dhaqmaan. Nasiib iyo hooyadeed waxay ahaayeen laba qof oo saaxiibo ah marka laga soo tago booska hooyanimo. Nasiib waxay gaartay xitaa haddii ay nin shukaansanayso in guriga ay keento hooyo agteedana ay ku shukaansato si ay hooyo u maqasho wax walba ay oranayso. hooyadeed Nasiib waxay ahayd hooyo aad u fiican, mar walbana waxay u sawiri jirtay sida dunidan dadku ku nool ay yihiin. Nasiib mar walba waxaa looga sheekay jiray sida dhabta ah ay yihiin dadku dunidan ku nool. tusaale sidoo kale waxaa loo sii jiray sida ragga ay u qiyaamaan dumarka iyo meesha ugu fudud ay ka soo mari karaan ayada oo looga sheekay jiray. laakiin hooyadeed waxa ay ka waday dardaaran iyo waano markaas ay gabadheedu ku waaninayso. Nasiib sidaas sidii loogu wado waxay noqotay gabar doorsan oo aad u fiican. tilaabo walba oo ay qaadayso Nasiib sidoo kale waxa ay la waraagi jirtay hooyadeed, ayadoo u sheegi jirtay meel walba ay aadayso iyo tilaabo walba ay qaadayso. Nasiib maalin maalmaha ka mid ah waxaa u bilowday maalmihii mugdiga ahaay. gebi ahaanba dunidan waxaa ka tegay hooyadeed macaan. waxay ahayd halka iftiin ee dunidan ay ka haysato. Nasiib maalinkii Allah oo naga jeclaaday hooyadeed iyo sidoo kale dunidan ay ka tagtay. Nasiib waxa ay gashay maalmo mugdi badan. ilaahay jannatul firdaws ha geeyo dhammaan hooyooyinkeena. Nasiib maalinkii waxa uu noqday mugdi,
habeenkuna wuxuu u noqday mugdi. mar walbana Nasiid waxay soo xasuusanaysay sheekooyinkii quruxda badnaa ee hooyo ugu sheekay jirtay iyo xusuusii quruxda badnaa ee mar walba la wadaagi jiray. waxaa gebi ahaanba halkaas ka baxay dareenkii ugu weynaa ee hooyonimo. waxaa sidoo kale ka baxay saaxiibtinimadii hooyo iyo mar walba dhiirigelintii quruxda badan ee la sii jiray. Nasiid sidee halkaas ugu nooleed gebi ahaanba waxaa ka soo horbooday magaaladii markaas ay ku nooleed, ayada oo ka doorbiday inay ka tagto oo hawagidis magaalo kale u aado si markaas niyadeedii si kale ay ugu noqdaan. Nasiid mar walba qalbigeeda Allah ayay ku xiri jirtay, waxayna ahayd gabar samir badan. xusuusihii ayaana mar walba u soo sawirmi jiray iyo dareenkii dhabta ahaa ee hooyo macaan mar walba ay kula tali jirtay. Nasiid oo xaaladeedu sidaas ahayd ayaa waxay imaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayay imaaday. halkaas ayayna imaaday. markii ay imaaday Nairobi waxay baratay gabdho badan oo saaxiibo ahaayeen ayay ku soo degtay. gebi ahaanba markii halkaas ay imaaday Nasiid waxay la kulantay gabdho badan oo nolosha ka dhacay iyo qaar kale oo aan weli sidaas nolosha uga dhicin laakiin qarku u saaran gebi ahaanba ayagana inay ka dhacaan. sidaas oo ahayd Nasiid waxay sameysay mid ka mid ah gabdhihii ayay la saaxiibtay markaas gabadhaas oo iimaan lahayd. Nasiid waxay isku dayday in ay bilowdo waxbarasho, waxayna gashay iskuulkii ugu horeeyay ee waxbarashada ee ka bilowday Kenya. Nasiid oo sidaas oo ahaa xaalkeedu ayaana waxa ay baratay gabdhihii kale. mar walbana gabdhihii kale ayaa waxa ay ku dhiirigeli jireen ama mar walba u sheegi jireen inay yar tahay, sidoo kale ay fiicnaan lahayd inay aroosyada u raacaan ee iska baashaasho si waqti qurux badan ee u qaadato. Nasiid mar walba qalbigeeda waxaa u soo sawirmi jiray dardaarankii quruxda badnaa iyo dhiirigelintii quruxda badneed ee mar walba hooyadeed u sheegi jirtay. Nasiid wax walba oo loo sheego dhegta jalaq uma sii jirin oo hore ayay ugu soo jirtay. Nasiid mararka qaar sidoo kale waxay dhihi jireen aad ayaad nooga nasiib badan tahay oo waalid maanta aad ka cabsanaysid ma jooga halkan, oo qof maanta aad ka cabsanaysid ma jooga halkan, oo qofku canaananaya ma jooga halkan. waa la iska baashaalaa oo waqtigaada ayaa la qaataa. Nasiid qalbigeeda ayay dejisay, waxaana mar walba ay isweydii jirtay adigu maxaad isku tukoortaa, adigu maxaan kaa saaray dadkan, maa soo dhexgashi dadkan iyo waxyaabo kale. mar walbana qalbigeeda ayaa celi jiray iyo samirka iyo iimaanka ee leedahay. Nasiid markii dambe waxay noqotay gabar dhoorsan oo dhaqankeedu aad u sareeyo, waxbarashaduna aad ayay uga fiicneed. Nasiid hadda waxay tahay gabar shaqaysato oo ku nool dalka Kenya. sidoo kale Nasiid waxay tahay gabar aad iyo aad u fiican. qof walba oo barto ama qof walba oo shaqadeeda ugu imaadana wuxuu ku dhiirigeliyaa wanaagga iyo sharafta iyo qiimaha ay leedahay halkaas inay kasii laba jibaarto si ay u guuleysato. Nasiid hadda waxay tahay gabar dhoorsan. nuxurka qisada sheekadan ay xambaarsantahay ayaa waxay tahay in waalidku mar walba ubadka uu ka dhigi karo sida asigu uu rabo iyo si ka qurux badan. dardaaranka, dhiirigelinta iyo waanada waalidka oo si dhab ah loo qaatana waxay kugu toosinaysaa wadada dhabta ah ee guushaada iyo riyooyinkaada nolosha aad ka leedahay. Nasiid saaxiibadeed waxay isku dayeen qarka inay ka saaraan, laakiin galabkii ugu weynaa ayada oo heesato ee ahaa dardaarankii iyo waanadii hooyo macaan ayaa waxay noqotay Nasiid qof guuleysto. adigu ma ku nooshahay hooyada? ma heshaa dhiirigelin noocan oo kale ah? haddii lagu siiyo sidee u qaadataa? mase waxaa tahay maqana joogo oo ka socdo? mase waxaa tahay mid dhiirigelinta waalidkiisa mar walba la siiyo ku socdo oo dunidan guul ka gaarayo? ilaahay hanoo daayo hooyooyinkeena mar walbana waxay yihiin iftiinka ugu sareeyo dunida noo joogo. maanta haddaysan jiri lahayn hooyo qof walbo dunidan xarakoodo ma uusan xarakoo lahayn. hooyo aan u wada duceyno dhammaanteen waxaan leenahay hooyooyinkeena jannatul firdowsi ilaahay hanoo geeyo. waxaa idiin soo gudbinayay qisadan anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal.
waxaad ka daawanayseen aaladaha aan ku leenahay baraha bulshada sida YouTube, Facebook iyo TikTok ee noogu qoran tahay Socdaal 24 inta ku kulmi doono qiso noocan oo kala nabadgelyo saaxiibada la wadaag si ay ugu soo falceliyaan waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan inta ku kulmi doono muuqaalkan oo kala nabadgelyo